intii aan ku sugnayn waddanka Zambia waxaanu la kulannay dad Soomaali oo fara badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ka shaqaysta laakiin waxa igu la yaab badnayd inuu jiro nin Soomaaliya oo beer ka samaystay meel ilaa 50 kilomitir dhinaca galbeedka kaga aadan magaalada Lusaka ee xarunta waddanka Zambia ninkaasi xoolahan iga dambeeyo dhaqdaa xilliyada qaarkoodna dalagyo kala duwan buu ku beeraa sidoo ii sheegay beertan oo isagu iska leeyahay ninkaasi Cabdilaahi Axmed Guutaala la yiraahdaa hadda waxa uu iga waramaya ninka Soomaaliga ee miyiga soo degay iyo wuxuu la kulmo Cabdilaahi aad iyo aad baan kuu salaamaya horta waa ka qadwal soo dhaw dhul barwaaqada taalaan mise sanadkoo dhan sanu barwaaqaysigii walaal sanadka 6 biloodna wadanka aanu joogno waa roob 6 biloodna waa qallayl weli waxaan dhihi karnaa ilaa 8 bilood waa dhulku waa qoyan yahay way 4 bilood oo buu qalalan yahay inta kale to sida uu qoyan marka 6 biloodna roob ku daa 6 biloodna waa qalalan yahay dhulku 6 biloodna wuu daa 6 biloodna sida uu sheegtay qallayl way jiilan marka sano kale cagaar ma u wadayay sanadkoo dhan aduu almost 8 bilood kamida oo sidaas cagaar u yahay inta kalena waa cad yahay oo caws uga dhigi waa qalalan marka guugi baa raagay iyo dayrtii baa la waayay iyo waa abaar iyo waxa isma jiraan ugama aanan baran ilaahay idankiisa sidaas aan rajaynayna intaan ka baran waa ta halkaan joogno maxaa la yiraahdaa wala halkaan joogno waxa la yiraahdaa Makomba la yiraahdaa tuulada aan joogno waxay ka tirsan tahay degmo halkaan dhinaca galbeed naga sii jirto Shibuyunji la yiraahdo وانا عند Lusaka sidaan filayo hadii aan wax la bedelin waxa laga yaabaa Cabdilaahi in dad fara badan oo Soomaaliya barnaamijka daawanaya ay la yaabaan nin Soomaaliya oo deedna 50 kilomitir magaalada ka soo baxay oo baadiyaha iska degay oo reer baadiyihii Zambians la degan maxaad fikradda ku keentay walaal waxaan ku keenay asal ahaan inuu Soomaali hadaynu nahay dhaqankeenu asal ahaan beeraha iyo xoolaha ka soo jeeda inta dabadeed waxa hadana igu sii dhaliyay wadankan ammaankiisa ilaahay oo lagu ammaantaday ammaan aad u badan buu leeyahay xabsi ma qabo meesha hadaan dirin dhigto caawa sixdo mas'uuliye wax kale guri baba kaaga dhisanay marmar ma u yeetaa guri aad u weyn baa iga dhisan oo afar qolo oo mas'uulshooda iyo waxooda dhexna ku leh marka marmar baan ku hoydaa marmar baan u soo harsadaa aniga dad dhogortiisu aad bay u fiicantay ma riyo badan yihiin ma sha Allah riyo u badan yahay ilaa iyo qiyaastii 80 kamiduhu waa ido 100 iyo xoogayna waa riyo macal yar laakiin waxa la sheegay Cabdilaahi wadankan in dhaqashada arigu aan ku badnayn oo xagga looda ay u badan yihiin adigu marka xaggaad ka heshay wadanka arigu uu leeyahay laakiin aad uma badna wax yar oo badnayn oo ninka ugu badan 50 leeyahay 30 20 bay dhaqdaan hadda hal baan u keenay waxa dhici karta in dhowr bilood soo haay imisa neefad markaa imka haysa riyuhu ilaa iyo 120 bay gaaraan iduhuna ilaa iyo 80 70 qiyaastii meelaha inta u dhaxaysa jooga marka dee dhaqsiimo kaliya ma aha iibad ugu tala gashay Soomaa waa dhaqasho sax ah ugu tala galay iibkuna qaab wax loo iibiyaa jira xoolaha nooc la iibiyo iyo nooc la iibin kara leeyahay way marka nooc la iibiyo waa sida labku markuu xoog yeesho intii aan xoolaha loo reebaynin iyo neefka hilibka ah oo qalashada ku quman sidoo mid aan ku qumanayn ba ma laha waa kuwan waa aragii dhalayo inay wax dhalaan laga sugayo weeye dalmadeeska ku dhawaada iyo weelka iyo orgiga laga iibiyo marka neefka saddex jirka ee xaggeenidee number 1 ka ahaa xaggan maxaa la siistaa idaha iyo riyuhu way kala baa way orgiga weyn matalan qiyaastii waxa la siiyaa 800 900 orgiga aad weyn waafay mid baa dili gaadhay way kala soo tuuray waafay wanaagana waxa la siiyaa ilaa iyo 1500 oo $150 kuwa aad weyn abnormalka haay kuwa dhaxena adiga ilaa 1000 ilaa 1200 meelahaas inta u dhaxaysa way marka beertaadana buu daaqaad meel kale ma tago beerteedu daaqa anagu ma qowdina beerta ilaahay ku dhaqan yahay dhulku waa aad weyn laakiin mar dhaweed calaf baad siinaysaa hadana calafka waxaan ugu tala galnaa inuu inoo soo ururo si inta la joogno oo noola joogo haay laakiin inta kale dhulka ilaahay buu iskaga foofaa dhulka ilaahay buu foofaa dhulkuna aad buu u balaaran yahay inta banaan waxa ka weyn inta aan banaanayn dadka reer Zambia ayaa ciidan ahaan xoolaha ula jooga Soomaa iyaga xoolaha la jooga oo dhulka la jooga oo guryaha la jooga مسؤول دابا iyaga ka ameeshay anigu waan soo booqnay wali toos u lama degan marka toddobaadkii oo kale tusaalahaan mise goor baad timaadaa toddobaadkii qiyaas ahaan haddaan wax emergency u jirin mar baan imaadaa dib wax emergency u jirana waa sidii loogu baahdo
gartay marka xoolaha halkeed ka iibisa ayaa ka iibsada xoolaha iibkoodu weli waqti badan ma aanan haynin qiyaastii hadda hal sano ay gacanteeda ku jiraan iyo hilibka dhihi karnaa hal sano approximate hal sano ay gacanteeda ku jiraan carafadii baan xoogaa ka iibiyey haddana carafada soo socota haddii ilaahay na gaarsiiyo wixii iib gala inaan ka iibiyaan rabaa waxa kale la ii haraa guutaale waxaa laygu yidhi oo lai sheegay deegaanka wax kastoo aad ku ridaana waa ka soo baxayaan miya wax kastoo lagu ridaa way ka soo baxayaan waay sanadkii dhawaay kii ka horreeyey 2016 waxaan beeray galley ilaa waxaa ii baxday ilaa 700 oo kiish qiyaastii ah ayaan ka qaaday meeshan waay runtii intaan ka malaysanayay wax aad uga yar bayna ahayd sababa jira awgood ayaan badan cunay roobku aad u badnaa annaga nafteenu sidii loo rabay aan uga shaqayn oo horumarinteenu aysan sidii la rabay gaarsiisnayn waxa ka jirta dalka Soomaaliya salga yaab inaad ka war hayso sheeko la yiraahdo aabba qaatay oo raggu si ay qaadka iskaga bixiyaan ay xoolahooda laftooda u soo dhacaan oo ay neef ka qaataan oo marka yaryarku yiraahdaan markay hooyadoodu sheegayaan aabba qaatay waxa la sheegay halkan ku dheeday in aabba qaataydii ka jirto adiga ma hayday dadka shaqaalaha ama dariska walaal sheekada ay iiga dhaxay anaga horta meeshan Soomaali kale ilama degana beertan oo dadkan Zambiyaanka ila degan iyagaana wakiil iiga oo gacanta ku haya runtii wax dhibana kala ma kulmin dad aad u wanaagsan weeye wixii yar oo dhacana wadanku sharci buu leeyahay waxyaabaha yararka ah oo dhaca oo hadii qof xad gudbo oo kale wadanku sharci buu leeyahay hadda nin waxa jira daris ila oo wax iga xaday wala neef buu qaatay ilaa 8 neef buu qaatay oo yar waaweyn isugu jira ido iyo riyo isugu jira oo marar kala duwan buu qaadanay 8 baa ku cadaatay oo naga maqnaatay way wuuna qirtay inuu bixiyo una ballan qaaday yani dacweyne maxkamadda laga daayo anaguna waa ka aqbalnay oo qirtay inay sarurad badan haysay anaguna waa ka aqbalnay inuu ka magdhawano waxeena ka isagii reebkiisa ka noolaaday isagii maya reerkii lama joogin kaligiis buu ahaa way in iska wareersan oo qamri ku cabay oo baan u haystaa mooyee ma ahayn reerku waa reerka bixinaya wuxuu qaatay waatay dadkan aad la degan tahay waxa laga yaabaa in la yaab ku noqoto dadka Soomaalida ninkaaga baadiyaha iska degay dadkan ma ku arkaan nin wadan kale ka yimid oo meel kale ka yimo iyaga aan ka mid ahayno si kale ma ku eega walaalow dadkan intaan ka bartay dad wanaagsan weeye oo runtii dad laga digo dadka ugu fiican weeye kaliya waxaan u baahanahay dad oon dadkeenneeyo nala soo dirso dhulka nala maalgashado nala soo dirso aad baan ugu baahnaan lahay si aan masaajid iyo madaaris iyo meelaan isugu nimaadno u yeelano laakiin boqolkiiba boqol dadka aan la deganaa dad aad u qiimo badan beertu intee laagtay markaa beertu guud ahaan 62 hektar weeye guud ahaan dhulkeedu inta hadda bannaan oo ku muuqato ishaadu arkaysaa hona waa 18 hektar weeye dhinacaan buu jiraa halkan buu jiraa dhulkii aan diyaarsanayn oo geeduhu ku yiin lahaa forest weeye hadda hawd weeye marka hawdkaasna markii aan u baahnaan haddii alla idmo aanu ka shaqayn doono laakiin Cabdilaahow dadka Soomaalida ee wadanka Zambia ku dhaqan waxa inta badan lagu yaqaanaa dhinaca gaadiidka waaweyn oo ay ka shaqaystaan ma kula talin lahayd sidaadan oo kale inay beer iibsadaan oo ama ay dalag ka soo saaraan ama ay xoolo ku dhaqaan walaal aad baan ugu talin lahay runtii wadanka dadka xoolaha iyo beeraha ku dhaqda dadka wadanka ugu qanisan weeye cadaanayna u badan yihiin anu dadkaas oo baan eegay inay cid walba ka fiican yihiin markaan u arkan inaan waxaan bilaabaan ku tala galay walow aanan heerka iyagu wax gaarsiiyeen aan gaarsiin karin haddana inaan wax uun bilaabo yaa qorshahaygu ah waana bilaabo waana joogaa insha Allah 1 2 3 Cabdilaahow idaha iyo waranka iyo xageeni waxa loo oran jiray kuwa madaxa madow leh inagu baa kale iyo hadii laga tago wadanka Iran ka qaar fara badan oo madax madow ma qoor madow baa halka ku arkaa wadankan idaha jooga runtii waxa u badan idahaas midabka madaxa aan madoobayna u jeedo boqolkiiba aqlabkoodu yahay laakiin idaha madaxa madoobana waxba ka jooga abuur baa ka jooga wax badan oo kamid ah ka jooga sida u badanna dadka xoolaha dhaqdo sideedaas oo kale ama cadaan u badan ama dad kale u badan baa idaha madaxa madow keensaday oo dhaqda dadka wadanka u dhashay idahoodu kuwaas gadgududan ama madow xagee ka keensadeen marka ma garanayo asal ahaan meesha laga keenay laakiin dadkaas dhaqdaa hadda arigan oo kale tiriyaha ari aad u waaweyn oo kan ka sii waaweyn oo Botswana iyo South Africa laga keenay abuurkiisa jira
kaa qofkii dhaqda kan wuu ka waaweyn yahay wuu ka says weeyaan warka caana badan yahay ninkan waa ninka mas'uulka ka xoolaha Cabdilaahi labada nin ee kalena xoolaha la hayaan isaga caawiyaan halkan waxa weey ceelkii waa ceel gacmeed kanina waa ceel gacmeedkii weeyaan oo xooluhu markay isku goostaan dooga iyo biyihii halkan u yaala way noolaanayaan oo barqadharagii la sheegi jiray wey halkan waa subax dharag baan u malaynayaa waliba barqada misoo mar walba dharag way هاي وعجيب وي بيه عبد الله بيه المركا هول بدن بو ما باهنه انت لو غاara biyahan walaalo waxaan qoday 2016 markii aan dhismaha bilaabay ceelkan meterkiisu waa 60 iyo 3 mitir inuu yahay filaya intaas baa lagu biyo 30 iyo wax la jira lagu biyo gaari 30 mitir oo kaliya meeshan waliba way biyo fogta هاي marka loo fiiriyo carramadu waan dhagax lahayn way meeshan oo dhulkii beeraha lagu tala galay 30 mitir oo kaliya ayaa ceelkaas lagu gaari biyaha bilowga biyaha ku soo tuuray beertan imikaanu ka nimay ilaa 50 kilomitir ayay u jirtaa magaalada Lusaka inta hore jidku waa jid laamiya oo aad iyo aad u wanaagsan laakiin marka laamida laga soo baxo ilaa 12 kilomitir ayaa jidku raf yahay waliba raf kaliya ma aha jidku aad iyo aad buu go'an yahay maadaama roobku uu maalin walba helo wadankan oo xilligii roobka lagu jiro sida halka ka arki kartaan waxa loo oran karaa dadka dhulkan jooga noloshoodu waxa weeye nimco ku suug laakiin dad kale oo baafa uu ka mid yahay oo kamarada duubayana waxaan u malaynayaa inuu qabo fikrad taa ka duwan oo wuxuu lahaa ninku muxuu soo fogaaday